riyadaha waxaan idin warsadhay hugtii ka yeertay howl wadaag aryay haaleeshay waa hurde afkaaga hayso hoy ninkow haddii kalento waa holce aryamaadoo saas u yaala anigii holci kara war bilaayada siin sheegasan bilaan iyoonay maalin ariiri walbaraw iyoonay lambarto kontaroolka fidhi ya bug kweerti dugsi leesahay dibay ku rideen diin daradood war waa degmada howlwadaag meesha uu qaraxa ka dhacay dad aan waxba kala ogeyn baa tihiine aryadhaha waraad adduunya uga sabartiinaan idiin haya jenaraal indhacadda wuxuu yidhi guddoomiyihii shabaab ee axmed diiriya abow cubayda la dhihi jiray mugow xanuunsada isbitaal ordigan ewelna la dhihi jira digfeer aa lagu daaweeyey ow yidhi maxaa idin yaalhe xalayga daya war isbitaalka waxaa loo dhisay dadka xanuunsan in lagu daaweeyo ninkuna waa xanuunsanaa war ninka aad sheegaysiin al-shabaab amiirka u ah oo aad leediin isbitaalka ordugaana lagu daaweeyey macal isbitaalka hargeysa waa lagu soo daaweeyey oo muuse bixi miyuu ogaa asagaaba geeya maha war ninka intaasoo isbitaal la geynayey meendhashareer buu watay war waxaaba cadaalad darro ah in dadkii qarxii soobo ku dhaawacmay dibadda lagu soo daaweeyo ninkii qarxiyana muqdisho lagu daaweeyo warnimiya warka jenaraal indhaada sheegi ii warkii ka horeeyey abdalla sheegi war ulusaha inga bahi ana sababto oo meelima inga muuqate ino wal sirdoon leeraw ban la hayno dawladda oo dalka jaandafurun ee idii hagalaasiyona idii ka bahaasoba halin tolelanka ogaayna marka ilaahay nabad weela war jenaraal indhacadda waxaa kaloo yidhi nimanku ganacsatada suuqyada joogta ayay ka mid yihiin dukaamadana iyaga canshuurta ka qaata oo xisaabiya badeecada taalla ilmahoodii iyo xaasaskoodiina magaaladay degan yihiin marka nimanyahow nimanku meel nagama jiraanoo waa nala joogaan buu yidhi indhacadda asaga yaa u warrama maa taliyaha nabad sugidda laga dhiga hadduu saas wax u ogyahay waa u qalqaalisa laakiin qof wax og lamaba rabo mahaan war marka qabaarmoog maa la rabaa maya yeesmeenga la fade war 20 jira la rabaa madaxuu u xiiran yahay warnimiya war mahaytana madiidi dalka dhangeeka baydhaw embati oo ra'iisul wasaare qayranka wiinya war doorashadii shariifka maa la qaban rabaa war dooyinka dara toy dibintada meer harantidi markire danguud mambana dangaare walan bahi ra'iisul wasaare mayba baydhaw unseeday ka saasana gudoomiyaha baarlamaanka aayisa dhimati taasiya meelanka bahiya leeri madabadan koofi ku giri ana la jiraan warnimiya mayliyaabana ra'iisul wasaaraha dalka keegan hooltaas ku wiin man yaalne aryaada waxaan maqli jiray sabjoog iyo siyaaro joog allaha kaa dhigo dad ku ducaysaayo leh war baydhaw war ma kaaytanashan macallimiintii dugsiyaalka quraanka fadhiya dhamaantay wal hawada aruuri masabay ka ducayhaayeen warkan inka dhax galo shubdaya Abdullaah mayna la aray ala qoftum dollar nambarkun ku tuura lanki ku tuuru waayna yaa weyla kalari macallin warka kula naqaanaaye na dhegayso awkee shariif shanta sano suroogi wal faylan yaha qabodi hanuun ya baabuur buubo fuuli war aw shariif ma xanuunsanaa been ha ka sheegin waana musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed warrobow isaga musharax ayuu yimid war ma haysiini madaxdii Geedland kismaayo isugu tageen marka shirkaas waxa abaabulay Axmed Madoobe iyo Cabdiweli Gaas xaaf iyo waarana waa tageen aw shariifna waa la sugayaa halkaas shantii dawladood ku kulmayaan aryaadaha waare iyo xaaf inay tagaan danaa qasbaysa oo taleefanadyaa laga qaba waayaa la yiri war shirkaas looma dhama intay ka maqan yihiin Muuse Bixi iyo Yarisow walta ilaahay baa wax ka oranaya Muuse Bixi Cabdi wuxuu ururinayaa hantidii ma guurtada hay'adda Soomaaliland inta uu geeyahay mugga wareedayni warame madaxweynaha Soomaaliya shiinaha ayuu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya wada hadalkoodii horena meeshii buu ka soconaya nima fayeenka madaxtooyada Cabdinuur buu ahaay goorma xilka la wareegtay warkaalka banaan baxa ka socda awal hay guriyaha ku dhex qabaayeen war guriga baa warka iga dhaxgal waxay ka banaan baxayaan dhalinyaro ku xiran garoowe wasiirka cadaaladda galmudugna wuxuu yiri dhalinyaradaas haddaan la soo deynin fitna ka dhalan doonto wareer gaalka ay fitnada toohata dhaladaasa urug ama wili sheegayeen dhaxtaale war kale nadiif aniin hayte
jirte war nimanka gudoomiye ku-xigeenkii gobolka shabeellaha hoose baabuurkiisa qarax loogu xiray ilaahayna waa ka badbaadiyo markuu ka tegey kadib uu qaraxii dhacay wariye khadka taleefanka kula xiriiray ayaa wuxuu weydiiyey gudoomiye sidee wax u dhaceen baabuurkan culayska dareemay marka in wax ku xiran yihiin baan ogaaday ayuu yidhi anaa idiin warramaayo beryahan xaalkaygu ma fiicnayn jacaylkii tifay diray taxobayna dhaawacay timirana jilbaha tiray guurataashka saaro la taabtiifaray iyo gawaan meesha taagaa anigana itaabto waa la tiicayaaye tolowsaan ka yeelaa war jacayl ma taqaanid adoo kalena kuma dhaco qalbi jacaylna ma lihide been ha ka sheegin jacaylka annaga naga dhegayso hadduu jacaylkuu qodax yahay anigaa ku rorogsaday hadduu jacaylkuu qodax yahay anigaa ku rorogsaday kugula roogsadhayey kugula roogsadhayey dhahaya war jacayl wakhtigiis ma joogne jacaylka ayaanaan xamane rag siyaasiyiinaan nahay oo rag damac siyaasadeed ku jiraan naga mid ee xaaladdu meeshay marayso aan iska waraysanno artaas naftirkeeda aad hadda sheegaysaaba jacaylaha ii wad sheekada war waa tuu yimid magaalada nimayow madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waa tii xildhibaanno iyo wasiirra soo dhoweeyeen maalintuu yimid habeenkeediina ra'iisul wasaare khayraa la kulmay wixii siyaasi beledka joogana ilaa wakhtigan faylay ugu jiraanoo meel la kala mara ma leh marka anugu haddaan maanta madaxweyne ahaan lahaa waxaan odhan lahaa oday furay islaanaan qaboy uurka uga taallo ayraboorka inuu soo agdego ma oggolaadeen anuguna waxaan dhihi lahay haddaan ahay dadka aad madaxweynaha u tahay asaguba hadduu dhalay ilmaha jooga agahaaga xagguu aadayaa sawdhashii aabba odhan mayso anigu waxaan dhihi lahay dadku waa dadkii waa dadkaan lahayn warnimayo heeskaa ku dheerina waxa waaye wakhtigu ma xumaadee dadkaa xun nimayo maalin dhoweyd wiil bajaaj wata waa tunni askarigii beledweyne ku dilay askarigii waa la qabtay saldhiggaa lagu xidhay rabshadii ka dhalatay dad badanaa ku dhintay maanta arrintii laba beelood wadaxaajoodkeeda u fadhiyaan baa la yidhi marka waxaan la yaabanahay aaway dawladnimadii maxaa nidaam dawliya loogu dabaqi waayay arrintan miyaanaan qabiil ka gaboobayn horta soomaaliya warheedahaya sawtii hore looyi nin wax dilay haddii aan la dilin oo la dili waayo waa inuu dilkii sii wataa se la dili waaye waa inuu dilaa sare noqda se la dili waaye sawtii la yidhi marka haddii dambiilaha la dili waayo waa inuu qabiil dawada la galaa war dawladda dhanaaba qabiil ku dhisan oo 4.5 adeerow naga daaya warka war mahaydan reer baydhow heesan ay aamiin yaren ulunliin dhiibe oo aqyaar dhalalalan aw shariifa yaren aamiin war kuuma ducayn korkaada ha qaacayninka uloosho wada dheer ma aamiin ma uloosho wada dheer ma aqyaar ma dhabadaanaas la nuugale aan ogaaya haddana matanaa ka dambaysa war dhabadunaas ma lehe dadka beenta ka dhaafa war dadkii dhabad naaska nuugaya joogeniihow indhaha shidana weligaaba adduunyada la soco sidinku duufaa idaymo dadkana saanaan u dila sidinku duufaa idaymo dadkana saanaan u dila sidinku duufaa idaymo dadkana saanaan u dila